kulanti wanaagsan saaxiibada ku xiran kanaalkeena Ilayska Dunida waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aan maanta muuqaalkan idinkugu soo gudbin doono qiso ku cibra qaadasho mudan. haddaba aan galno muuqaalkeena. waxa ay tiri hooyo ku sugan xaalad gabow ah, waxaan lahaa 3 wiil. markii mid waliba uu weynaaday waan u guuriyay 3doodaba. maalin ayaan soo boqday koodii ugu weynaa, waxaana ka dalbaday inaan la bariyo oo aan caawa aan la seexdo. markii ay gaartay subaxii, waxaan ka dalbaday xaaskiisa inay ii keento biyo aan ku weysaysto. waan weysaystay, waana tukaday. intii iga soo hartay biyihii, waxa aan ku shubay furaashkii aan xalay ku seexday. markii ay ii keentay xaaskiisii shaaha subaxii, waxa aan ku idhi, gabadhaydii, waa sidan xaalka gabowga. xalay waa aan wasakheeyey furaashkii, waana isku kaadshay. waa ay qaylisay xaaskii, waa ayna caytantay. waxaana afkeeda ka soo baxayay erayo kulkulul. waxa ayna igu amartay inaan dhaqo furaashka, kana dhigo sidiisii hore, aanna mar dambe u laaban haddii kale. markii dambe waan dhaqay furaashkii, aniga oo caradeyda qarsanaya. waan ka soo tegey, waxaana xaggiisa soo aaday guriga wiilkayga daahaan dhexe. waxaana ku sameeyey sidii oo kale. waa ay carootay xaaskii, waa ayna qaylisay. waxa ayna ii sheegtay ninkeedii waa wiilkaygii, isagana kama uusan hadlin arrinkan, waana uu ka raali noqday xaaskiisa. markaan waxa aan u soo hoyday wiilkaygii yaraa. waxa aan ku sameeyey xaaskiisa waxa aan ku sameeyey 2 xaas ee 2daydii wiil, kii weynaa iyo midkii dhexe. markii ay ii keentay xaaskii subaxii shaaha, waxa aan u sheegay inaan xalay aan isilmaamay oo aan isku kaadiyey xalay toole. waxa igu tiri gabadhii, hooyo, wax dhib ah ma leh, tani waa wax lagu yaqaano inay ku dhacdo dadka waaweyn. meeqa sano ayaan annaga dhaftiina ku soo kaadin jirnay, innaga oo caror ah, idinkana noogu soo sabri jirteen. kadibna gabadhii way dhaqday furaashkii, wayna hagaajisay. intaasi kadib waxa aan ku idhi, gabadhaydii, waxaa jirta gabar aan saaxiibo nahay. waxa ayna ii soo dhibtay lacag. waxa ay naga dalabtay inaan u soo iibiyo dahab, aniguna ma aqaan cabbirkeeda. waxaana arkaa inaad isku cabbir tihiin. marka gabadhaydii, adiga isii cabbirka gacmahaaga. kadib hooyadii waxa ay soo aaday suuqa. waxa ayna ahayd mid hanti fara badan haysatay. waxa ayna ka soo iibisay dhammaan hantideeda dahab. waxa ayna isugu yeertay dhammaan wiilasheeda iyo xaasaskoodaba. waxa ayna soo saartay dahabkii. waxa ayna u sheegtay inaysan habeenka isku kaadin ee ay biyo ku shubi jirtay furaashka. waxa ayna dahabkii u gelisay gacmaha xaaska wiilkii ugu yaraa. waxa ayna ku tidhi, tani waa gabadhayda runta ah. iyada ayaan la noolaan doonaa marka aan gaboobo, ilaa aan ka dhimanayo. halka 2 xaas ee kale ay ka naxeen waxa ay ku sameeyeen sodohodood. Allah subxaanahu wa ta'aala quraankiisu waxa uu ku leeyahay, hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan. samafalka abaalbarintiisu waa samafal oo kaliya. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta oo ku saabsanaa qisadii cajiibka badnayd. waxaana idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.